بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا ليال إلهي بمهد سبحانه وتعالى. waxaan jeclaystay videogan inaan idin la wadaago ama marxaatimaha idin ka dhigo dacwad ku saabsan gurigan ku jiro oo maxkamadda taala. waxaanan igu kalifay inaan ka hadlo su'aasheedii bay igu badato magaalada dadka jooga ee gudaha iyo dadka dibadda joogaba su'aasha la weydiinaya. markaa waxaan jeclaystay si rasmi ah inaan uga hadlo saddex qodob. dacwadaasi maxay tahay? laba, dacwadda si dhaba ayaa uga dambeeya. saddex, cidda dacwadda si dhaba uga dambeysay maxay damacsan tahay? saddexda qodob baan jecelahay inaan ka hadlo. waxaan ku horeynayaa dacwaddaasi maxay tahay. aniga gurigan ku jiro xaafadda Gaashaamaale markuu jagada ahaa waa 270 mitir kaari. gurigan ku jiro Gaashaamaale ee Gaashaamaalaan ka dhisay. aniga waa guriga haddaan ku jiro. aniga waxaan ku haystay jago balladkeedu yahay 447 isku soo wareeg ama mitir kaari sida loo yaqaano ayaan ku haystay dugsiga dhexe ee loo yaqaano CS Dombuli dugsiga dhexe Xumbuli. meel agtiisa waa meesha hadda ay ka dhisan tahay madrasada loo yaqaan Zaad. halkaa baan ku haystay jagadhan 447 waliba wax yar oo dheeraad ay ku jiraan. waxa dhacay halkan hadda aniga gurigeyga aan ku lahay xaajiyad la yiraahdo hooyo cibaado Cumar Cawaale ayaa jagada iska lahayd 270 mitir kaari. madrasada Zaad walaalihii ka mas'uul ahaa markaa Sheekh Giire uu ka ahaa ayaa xaajiyadaas ugu deeqday madrasada Zaad halkan hadda gurigeygu ka dhisan yahay, meesha gurigeygu ka dhisan yahay. walaalaha Zaad aniga way yimaadeen waxay igu yiraahdeen meesha tan la siiyay waa 270 wayna kooban tahay waana xaafada dhexdood. adiga meeshaad ku haysato 447 iyo dheeraad waa meel madrasad ku fiican oo waa meel banaan oo madrasad ku fiican. dugsiga dhexe Xumbuli baa ka dhisan. meesha agteeda waxaan ku haysanaa bay igu yiraahdeen inta in leeg 447 kale ayaan ku haysanaa oo cid kale aan siisay. 447 kale ayaan meesha ku haysanaa. adigana haddaad siisid 447 kan meeshaas waxay noo noqonaysaa 1,000 mitir kaari oo dhow. marka waa meel ballaaran oo madrasad ku fiican. meeshaada waxay yiraahdeen ugu bedel 270 kan hayna siisay hooyo cibaado Cumar Cawaale. walaalahayde meeshaasi waa madrasad waxa lagu dhigaa afka carabiga diinta lagu fahmaa. waxa lagu dhigaa quraan, waxa lagu dhigaa xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam. waa hooyo waxay u bixisay meesha waa khayrka madrasada ka socda waxaad ka yeeshid ayaa hooyo cibaado Cumar Cawaale u bixisay. aniga markaan qiyaasay ragaan isnaqaano oo meeshii yiri madrasad baan u baahanahay 447 kaaga inta noogu bedel inta ilagna meesha waan ku haysanaa. aniga waxaan ku yahay khayr baba sameeyay baba ihsaan sidoo qofka sameeyay laaba yeelay. marka la kala gooyo 447 iyo 270 dhow baa soo haraya. intiina lacag waxay siiyeen maliyuun lacag xilliga 270 mitir kaari maliyuun lacag ma aha yani waa wax ka badan. laakiin ihsaan baba sameeyo intii dheeraadka ahayd lacag bay igu celiyeen. sidaa mabda'an markaan ku heshiinay waxaan maray qaanuunka caadiga ahaa ee wadanka u yaalay sida wax loo kala bedesho mutation baa lagu yiraahdaa afka gaalaad. sida wax loo kala bedesho waxaan u tagnay Meter Cabdalla Kaamil hadda uu nool yahay. waa xeer yaqaan dawladda dhaarisay oo waa la dhaarsaday. waxa la kala iibsanayo iyo wixii lamida ayaa la mariyaa. dawladuna kalsooni buuxda ku qabtaa Cabdalla Kaamil baan u tagnay. Cabdalla Kaamil 270 ka iyo cibaado ay ugu deeqday nimanka iyo 447 way noo kala wareejiyeen. waxay noo kala wareejiyeen si qaanuunka waafaqsan. waxaas way qoran yihiin. anigu waan haystaa originality baan haystaa koopiyaan haystaa. Cabdalla Kaamil noteerkii ilaa hadda uu nool yahay
xafiiskiisu furan yahay oo waa laga soo helay waxay nagu kala wareejiyeen si xalaal oo waafaqsan xeerka iyo qawaaniinta iyo shuruucda wadanka u yaala sidii wax loo kala iibsan lahaa ama wax loo kala wareejin lahaa ayaanu la kala wareegnay aniga markaa waan dhisay 270ka waan dhisay waa 2006 2008 wuxuu arrinkaas dhacay 2008 anigu de guriga waan dhisay waa guriga hadda aan galo in deganahay waraaqi Cabdalla Kaamil noo kala qoray ilaa finance-ka tageen finance-ku waxa weeyaan waa wasaaradda maaliyadda marka waxa jirta laan la yiraahdo le domain waa laanta wasaaradda maaliyadda u xil saaran dhul iibinta iyo dhul sharci garaynta waraaqihii noteer Cabdalla Kaamil noo kala sameeyay xeer yaqaan Cabdalla Kaamil noo kala sameeyay waxa uu gudbiyay wasaaradda maaliyadda laanta u xil saaran dhul kala wareejinta iyo dhul kala iibinta okay aniga waxaan ka iibsaday mar labaad laanta dawladda u qaabilsan dhulka la iibiyo ayaa markaan dhisay aan ka iibsaday dawladdii baan ka iibsaday hadda waxaan haystaa dawladdu waxay siisay waxa loo yaqaan titre foncier cadaynta sheegaysa qofku inuu jagada iyo waxa ka dhisanba inuu leeyahay cadaynta sheegaysa ayaan haystaa cadaynta waa la yaqaan reer Djibouti dadka guriyale titre foncier waa la yaqaanaa cadayntii waa taa waa lambarkeedu waa 539 waa 539 cadayntu waa taa waa buuga weyn reer Djibouti intii la cadayn guri oo iyadu ay leedahay waa buuga kaameraga uu ka yahay kaameraga ma qabanayso macnaha waxaan uga jeedaa إن عندك تسمع الوجه كاميرا وما قبل يسوع وأبوه قوي معناها دول كا أنا لك لو رجني أنا جا يو ولا لها زاد ما ده هو عبادة عمر علمي لمن كان زاد بيسيسي أنا غير زاد بيجي أنا غير زاد بيجي نو بدلو إحسان وسميه أنا جا إحسان ما سميه ده ريز زاد بن إحسان وسميه ريز زاد يعني إحسان وسميه si aan loo wareega meeshaan jaranjarooyinkii dawladdu ay ugu tala gashay in la mariyo jago ayaan demariyay ilaa wasaaradda maaliyadda laanta u xil saaran maxaan ku raadayay dhul iibinta waxay yiraahdaan xeer yaqaanadu titre foncier-ga warqadda cadaynaysa anigu inaan leeyahay jagada ee gurigaba 539 waxay yiraahdaan waa sida warqadda dhalashada adiga intoo magacaaga la qaado oo adigu sawir aad leedahay laga qaato oo dhalashadii intoo laga qaato sanadka dhalatay maalinkii iyo sanadkii bishii de qof kale intoo loo sameeyo lama siiyo sawirkaaga cid kale lama siiyo taariikhda dhalashadaana cid kale lama siiyo magacaagana cid kale lama siiyo sida taas ayna suuragal wahayn in adiga titre foncier cadayn sheegaysa adigu inaad gadatay dhul iyo guri cid kale inaan siin kareynin sidaas oo kale ayaan suuragal ahayn marka horta dacwadda maanta marka la igu wadi wax weeyaan adigu malihid meeshan malihid waad boobtay si xaq daraad ku qaadatay aniga sidii aan ku helay walaalahay oo aniga sheegay waxay yimideen nimankaas oo yiri meesha bayna siisay hooyo cibaado Umar cilmi ee noo bedel meeshan bedelitaankiina si xalaal oo sida aan ka waramay marka dacwadda taale waxa weeyaan ninkani guriga wuxuu ku haystaa meesha jagada wuxuu ku helay si qalqalooca musuqmaasuq ku jiro xalaal ma meesha uu degan yahay ha laga qaado ha laga soo celiyo dacwadda horta taale macnaheedu waa sida inta waxaan ku dhaafay dacwadda ayaa ka dambeeya dacwaddan waxa jirta koox tirayaro oo isku xidhay ayaga noloshooda iyo nidaamka wadanka haysta noloshiisa koox isku xidhay baa jirta oo aragtaa dun nidaamkaasi burburo ama meesha uu ka baxo ayaguna inay meesha ka baxayaan bay warkaan marka waxay ku dagaalamayaan cidiyaha koox baa jirta cidiyaha ku dagaalamaysa cidiyaha waxay isku xidheen noloshoodii iyo nolosha nidaamka cadaalad darrada iyo boobka iyo dhaca wadanka ka socda iyo noloshooda isku xidheen systemkaasi meesha ka baxo waxay warkaan in ayaguna meesha ka baxayaan marka waxay cul ku yihiin cid kasta oo si degan oo qabow oo nabada oo walaaltinimo ay ku jirto dadnimo ay ku jirto
cid kastoo dadka ula hadasha oo damiirka dadka toosiso cuquusha dadka toosisa ayaa waxay ku yihiin cadow culbi ku yihiin adduunka waxay ka necab yihiin ma jiro ciddooda la hadlaysa si miyir qabta ula hadlaysa dareenka dadka toosinaysa war sidan si noo dhaantaa jirta cid oranaysa adduunka cid ay kaga xun yihiin ma jirto marka koox noocaas ayaa waxay sameeyeen waxay ku tala galeen dagaal ay ku qaadaan marka waxa la baarbaaray khaanadii baa la baaray waxa la soo helay jagadaas oo ay lahayd hooyada fiican ee khayrka ba sameysay jagada la baxday ayaa la soo helay jagada bay lahaydoo dawladkani jagadii buu dhistay hal lagu rugo waxa loo tagay culays waa dawlad aakhiru zaman joogta dawlad aakhiru licib joogta waan garanayna dawladu aakhir zaman waa dawlad aakhiru licib joogta oo gadooday ayaa dul baxday waxa la dul baxay faamigii baa la dul baxay xaajiyadaas la dul baxay hooyo cibaado waxa la yiri ama de sibaan yeelaynaa ama ninka dacwad ku fur hooyo cibaado dad tira badan bay dhashay dadkii way kala qaybsan yihiin dadkii qaar baa ayaa la qaatay marka dadkii qaar baa la yiri dacwad diga marka dacwadan waxa wada hooyo cibaado waa hooyo macaan runtii oo de waa taa madrasada la baxday ilaahay hortii ula baxday culays baa la saaray hooyo marka faamiga qaar kood baa ayaa dacwada ka banduula culayskana waxa saaray waa kooxda ugu tala gashay inuu dhici karin qof dadkiisa dhex joogo dadkiisa la hadlay in la waayo ayay ugu tala galeen runtii aniga hooyo cibaado Umar Cawaale de khayru man ka sheegay waa hooyo macaan yaa ilaahay khayr ka siiyo madrasada waxa uu bixisay khayr baa uu bixisay faamiga waxa jira qaar baa la soo xiriir faamiga kamida oo hooyo cibaado ay dhashay waxay ugu yiraahdeen anagu waxa kuma jiro ilaahay hortii bari baan ka nahay baraha bulshadana waxbay ku qoreenoo hadda korba waa la akhriyo waa macruuf qodobka saddexaad kooxda cidiyaha ku dagaalamaysa oo reerkaasoo nabada madaxa uga baxay yiri wadaadka dacweeyo dacwad ku fura maxay u jeedaan ulajeedadoodu waa maxay waa macruuf cariiri hal geliyo cid kastoo nabadoo ummadda wax u sheegta oo dulmiga nacayso iyaro dadnimo alo iyaro damirlo iyaro cid kastoo damqashale oo reer Djibouti cid kastoo damqashalo reer Djibouti waxa lagu qaadayaa dagaal xiira colaad xiira ayaa lagu qaadayaa cid kastoo reer Djibouti oo damir leh hadda ka hor waa lagu qaaday damir baa la masaafuriyay damir baa baasaboor laga qaaday damir baa wadankiisii hooyo ku soo noqon karin oo dibad meeraysanaya uquul shahaadooyinka adduunka kuwii ugu waaweynaa rag iyo dumar haystaa dibadda meeraysanayo barafkay meeraystaan barafko wadankoodii hooyo ku soo noqon kar lahayn maxay ugu soo noqon kar lahayn dawaa damirna laba rabo marka nimankaas waxay u jeedaan meeshan damir lagama rabo cid nool oo damqanaysa oo dadkayga u damqanaysa meeshan lagama rabo cid walba waxa la rabaa inay noqoto nacas iyo doqon inaad noqoto ayaa cid walba laga rabaa marka kooxda cidiyaha ku dagaalamaysa ee reerkaas oo nabada intay gashay colaad gelisay oo dacwadayadu sameysay dacwadayadu hoos ka waday waxa weeyaan ma rabaan damir ma rabaan waxa laahay ugu dambeyn walaalay waxaan mahadinayaa hooyo cibaado Umar Cawaale waan mahadinayaa qoyskayga dadka ay dhashay dadka waxa diidan oo ka buuqayo raali ka hayn waan mahadinayaa waxaan mahadinayaa reer Djibouti Soomaali Anfar Arab Suudaan waxaan mahadinayaa cid kasto oo luqadan ku hadlaysa ay fahmaysa waxaan mahadinayaa cid kasto midadiida waxaan idinku leeyahay dhammaanteen midada diino midadiidnimadu waa mushaaro waa hodantinimo waa lagu qurucdaa waa lagu qadeeyaa waa lagu ciwaaftaa waa lagu casheeyaa waa lagu saxda damirku waa nolol la conscience vivante c'est une manière de vivre qofka damirkiisu markuu nool yahay waa qaab loo noolaado adduunka wax hanti la siisan karo oo la goosan karo maaha walaalay waxaan idinku leeyahay damirkeenu ha jiro dad nool ha noqono inagoo isku duuban midhadan diino dacwadda meesha ku dambaysa insha Allah taala وانا idin la socodsiinaya barakallahu fiikum assalamu alaykum